hay'adda khayriga ee Al-Raxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay degmada Daarasalaam gaar ahaan dooxa kal qoray ee tuulada Boodley. Suhuur Ibraahim Maxamed ayaa waqfi ugu bixisay isla markaasina ula niyootay waalidiinteeda iyadoo markaas uu soo wakiilatay Sahra Caydiid Caraale. Sheekh Cabdalla Maxamed Ibraahim gudoomiyaha hay'adda khayriga ee Al-Raxma ayaa ugu horeyn ka hadlay furitaanka ceelbiyoodkani. hawshan Suhuur Ibraahim Maxamed oo soo bixisay waqfigan halkan aan maanta ku furayno waxa aan leenahay waalidkii loo soo bixiyay iyo dadkii leedmay loogu talagalay waqfigan inay gaaraan waxaan leenahay miisaanka xasanka Allah idinku daro aan u ducaynaynaa waxaan leenahay waxa la bixiyo biyo ugu qaalisan ugu qiimo badan waxaan leenahay halka ka soo saarteen Ilaahay ciwad khayr lahayd siiyo waxaan leenahay aad ugu ducaynaynaa waxaan leenahay maanta waxa loogu baahi badan yahay waa biyo biyuhuna waa nolosha koowaad waxaan leeyahay oo kale aan ugu darayaa anaga Jimciyada Raxma hawshan waa hawl kulli aan mar walba qabano oo waxyaalaha hadii la idmaya aanu dadka danyarta ugu gargaarno waxaan baaq uga dirayaa halkan maanta waxaan ku jirnaa oo Soomaaliland ay ku jirtaa abaar adag oo biyo la'aan waxaan leeyahay ha loo gurmado dadka. Sahra Caydiid Caraale oo kamid ah qurba joogta Soomaaliland ayaa faahfaahinaysa halka uu ka yimid adduunka dhaqaale ee lagu yagleelay ceelbiyoodkani. maanta oo ay bisha 23 tahay waxaanu taaganahay Daarasalaam degmada Daarasalaam halkaas oo ceel ka fulinay ceelkaasi oo waqfiya oo ay qoday oo kharashkiisa soo bixisay Suhuur Ibraahim Maxamed oo ay ugu maaragtay u waqfiday waalidkeed oo kala ah Ibraahim Maxamed Caraale oo loo garan og yahay in laba shaagle iyo hooyadeed Caasha Sheekh Daahir Sheekh Cabdillaahi ilaahayna waxaanu ka baryaynaa isaga casaawajalle ceelkaasi inuu ka yeelo ceel barakaysan oo deegaanku aad iyo aad ugu maaragtay ugu intifaacsado. Cabdiraxmaan Cabdillaahi waa gudoomiyaha shirkadda dhistay ceelbiyoodkani ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha ceelkani. haddaan ceelka warbixin ka siiyo ceelkan wuxuu hoos u qodan yahay 12 mitir balciisuna waa 2.5 mitir square balciisuna sidaa darteed waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu muddo dheer sii jiri doono laga manfaacsan doono insha Allah taala dadka deegaanka ku nool oo dhan way ka wada faa'iideysan doonaan sida hore loo xusay dadku waxay hore uga cabi jireen meelo maxaan dhahdaayay ay qacantooda ku qodan jireen oo habeenkii iyo maalintiiba qodaal bay ahayd laakiin insha Allah taala waxaan rajaynayaa in ceelkan uu noqdo mafaatiixul khayr oo ceelal badan oo horsada deegaankan oo baahi weyn u qaba kana faa'iideysan doonaan insha Allah taala dadka deegaanka waxaan ku dardaaraynaa inay ilaashadaan oo ay manfaacada ceelkaas si fiican u daryeeraan oo ay ka darayada ka ilaaliyaan ceelkan wuxuu ka qodan yahay dooxa kal qoray tuulada Boodley degmada Daarasalaam ee gobolka Maroodi Jeex. Injineer Aadan Cabdi Faarax oo kamid ah qurba joogta Soomaaliland ayaa isna halkaasi ka hadlay. farxad weyn bay noo tahay inaanu arrimahan oo kale aanu aragno oo aanu furitaanka ceelkan ka soo qayb galno kolka la eego kharashka ku baxay kharash sidaa u sii badan maaha laakiin manaafacaadka uu ceelkaasi leeyahay wax la qiyaasi karayaba maaha. ugu dambeyn Muuse Aadan iyo Maxamed Yuusuf Ileeye oo kamid ah dadka deegaanka Boodley ee degmada Daarasalaam ayaa ka mahad celiyay ceelbiyoodkani loo dhisay. inantii soo bixisay waana nuu ducaynaynaa imigana waa nuu ducaynaynaa markalena waa nuu ducaynaynaa waana nuu baahanahay ceelal badan baa nuu baahanahay 300 oo qoys baa yaala meesha intan waa inagu yartay wili oo waxba nagama taraysay in loo soo kordhiyo ayaa nuu baahanahay hase yeeshee horta imiga maanta waanu idin ducaynaynaa waxa la isasiiyo horta biyo ugu wanaagsan biyo wax ka wanaagsan ma jiraan. ceelkani uu degmada kal qoray yahay Daarasalaam uu yahay haddana maanta si fiican baa ceelkan loogu reeyay ilaahay cidii soo bixisay iyo intii loo bixiyay ilaahay iyadana khayraadka jannada hageeyay intii dhimatay intii kalena ilaahay de khayrkeega ilaahay hasiiyay iyadana. Mukhtaar Mursal Xiin Home Cable TV degmada Daarasalaam ee gobolka Maroodi Jeex.